maraykanku waxa uu si caadiyaal ah u sheegay inuu la wareegayo shidaalka Venezuela ma aha xatooyo qarsoon ee waa bililoqo dharaar cad dhacaysa malaayiin fuustooyin shidaal ah ayuu qaadanayaa laakiin ma aha markii ugu horeysay ee uu sidan sameeyo Afrika gaar ahaan dalka Chad ayuu isla falkan ka geystay haddaba su'aasha ayaa ah Venezuela ma ku socotaa isla jidkaasi tabinteena Antifatir Media ayaa si gundheer u lafaguraysa isu ekaanshaha labada qiso ee soo dhawaada madaxweyne Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanku la wareegayo 50 milyan oo fuusto oo shidaal ah oo laga qaadayo Venezuela kuwaas oo lagu iibin doono gudaha Mareykanka halka dakhliga ka soo baxana uu si toos ah gacanta ugu galayo isla Trump si uu ugu qaras gareeyo danaha labada shacab ee Mareykanka iyo Venezuela sida uu hadalka u yiri halkan wax walba way cadaadeen arrintanna ma aha talaka tuuris madaxweyne balse waa howlgal ballaaran oo lagu boobayo hantida Venezuela gaar ahaan kayd shidaal oo lagu qiyaasay 303 bilyan oo fuusto xatooyadan ma aha mid si kadisa ku dhacday waxa ku lug leh mas'uuliyiin sare oo reer Venezuela ah laga bilaabo hoggaanka militariga wasiirka difaaca ilaa xafiiska madaxweynaha ku-xigeenka xilligii Nicolas Maduro waxa hogaaminaya oo si toos ah ama si dadban ugu lug leh sirdoonka Mareykanka kaas oo sanado iyo bilo ku bixiyay maalgelinta kala qaybsanaanta gudaha Venezuela iibsiga daacadnimada hogaamiyayaasha nidaamka iyo burburinta awoodda dawladnimada maalmaha soo socda waxay muujin doonaan in 50 milyan ee dollar ee Mareykanka dul dhigay madaxa Maduro aysan ahayn lacag kaliya balse ay noqdeen lacag si hoose loogu qaybsaday mas'uuliyiin badan oo reer Venezuela ah qorshahan wuxuu ku bilaabmay xeelad cadaadis dhaqaale saboolayn iyo go'doomin buuxda oo lagu sameeyay warshadaha saliidda ama shidaalka Venezuela ilaa heer uu mas'uul kasta oo ku dhow Maduro noqdo mid la iibsan karo ama la gadan karo waxaana la yaab leh in Mareykanka uu hadalkan ku dhawaaqay wax ka yar toddobaad markii talada laga tuuray Maduro 50 milyan oo fuusto oo shidaal ah ayuu qaadanayaa taas oo suuqa caalamka aan wax weyn ka goyn una dhiganta wax soo saarka Sacuudiga ee 5 maalmood balse tani waa bilow kaliya waxaan ka hadlaynaa qaab sii socon doona sanado badan 100 milyan ama xitaa balaayin fuusto oo shidaal ah oo si toos ah u gali doona gacanta Mareykanka si uu ugu qaras gareeyo sida uu doono Trump waxa uu si cad u yiri labada shacab marka ay joogto shacabka Venezuela waa fahmi karnaa sababtoo tahay kheyraadka ay leeyihiin laakiin shacabka Mareykanka maxaa kala dhaxeeya shidaalka Venezuela marka su'aashaas timaado ayaa laga yaabaa in muwaadin Carab ah ama Afrikaan ah oo jecel gumaysiga uu yiraahdo ugu dambeyn shacabka Venezuela waxay ka faa'iidi doonaan kheyraadkooda kadib 15 sano oo saboolnimo ah laakiin aan ku sheego mustaqbalka indhaha taariikhda aan dib u milicsano sheeko hore oo ku qoran buugaagta sooyaalka balse si ula kac ah loo ilaabay waa sheeko ka dhacday Afrika gaar ahaan dalka Chad waa dal ay Mareykanka ka cabsan jireen saboolnimadiisa nolol xumadiisa iyo xasilooni darradiisa siyaasadeed xiisaha Mareykanka waxa uu ku ekaa taageerida kaligii taliyayaal sida Hussein Habre si looga hortago saameyntii Liibiya iyo Colonel Muammar al-Gaddafi ay ka takhaluseen sirdoonka Mareykanka ayaa xitaa tababaray mid ka mid ah hay'adihii amni ee ugu xumaa Afrika taas oo sababtay dhimashada in ka badan 40,000 oo qof markii Habre la afgambiyay waxa talada la wareegay Idris Deby saaxiib dhow oo Mareykan 1990kii Chad waxa loo arkayay dal sabool ah 90% dhulkiisuna waxa uu ahaa lama degaan laakiin wax walba way isbedeleen markii ExxonMobil isla shirkadda maanta Trump uu ku dhawaaqay inay keeni doonto shidaalka Venezuela ay dalka Chad ka heshay ku dhawaad 1 bilyan oo fuusto oo shidaal ah gaar ahaan ceelka Doba halkaas ayay ka bilaabatay mid ka mid ah xatooyooyinkii ama biliqadii ugu weynaa taariikhda Afrika maamulkii Bill Clinton ayaa go'aansaday in dakhliga shidaalka aan la siin karin dawladda Chad maadaama ay tahay kaligii talis halka ay tahay in si toos ah shacabka loo siiyo shirkadda ExxonMobil iyo bangiga adduunka ayaa dejiyay qorshe dhammaan dakhliga shidaalka waxa lagu shubayaa akoon gaar ah oo ku yaala London shirkadda ExxonMobil waxay soo saari jirtay shidaalka dhuumaha waxay marin jirtay Cameroon kharashaadkana waxa ay ka jaraysay faa'iidada inta soo hartay 12.5% waxa la siinayay dawladda Chad halka 87.5% lagu sheegay in loo adeegsan doono jiilasha mustaqbalka ee waxbarasho iyo caafimaad natiijadu maxay noqotay in hub Mareykan lagu iibsado lacagtii shidaalka Chad mashruucyo been ah lagu qaato qoyska madaxweynaha hantida boobaan xataa kuraasta iskuulada ayaa la xaday
shacabka jaad waxba kama faa'iidin shidaalka dalkooda taas beddelkeeda waxay si dadban u maalgeliyeen nidaamyo shisheeye sheekadan waxaa si faahfaahsan loogu qoray buugga caanka ah ee loolanka shidaalka Afrika hadda isweydii jaad ma kuu sheegaysaa waxa ku dhacay Venezuela waa isla qaabkii balse heer ka weyn ma aha 1 bilyan oo fuusto laakiin waa 303 bilyan oo fuusto Trump oo raacaya jidka Clinton waxa uu iibin doonaa shidaalka waxa uu la wareegi doonaa dakhliga wuxuuna ku qarash garayn doonaa sida dalka jaad hub musuq iyo dana Mareykan shacabka Venezuelana ma arki doonaan 1 senti farqiga kaliya ayaa ah jaad habeen madow ayaa la dhacay laakiin Venezuela dharaar cad oo dhaayaha dunida soo jeedaan ayaa waliba si faan leh loo bilaqaysanaya kani waa Mareykanka cusub ayuu leeyahay Trump ama nidaamkayga ayaad u hoggaansamaysaa ama hantidaada ayaa la qaadanaya waa gumaysi cusub oo waji kala leh wuxuu ka bilowday Caracas wuxuu mari doonaa Havana oo Cuba ah wuxuuna u jihaysan yahay Tehran oo Iran ah waa dagaal dheer oo ka dhana Shiinaha dal kasta oo fursad siin kara Beijingna waa bartilmaameed Venezuela qisadeedu ma aha arrin iska caadi ah waa wax saameynaya mustaqbalkaaga halkanina waa Mareykanka cusub tabinteeni Tafaftir Media intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad nagu xiraataan intaan dib u kulmayno nabad iyo warsan